al-shabaab ayaa inta taariikhda la xasuusto waxay maanta weerar qorshaysan ku qaadeen garoonka diyaaradaha Ballidogle ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo saldhig ciidan u ah Kumaandooska Soomaaliya ee Danab iyo sidoo kale ciidamo Mareykan ah oo howlgallada iyo tababarada ka caawiya dawladda Soomaaliya. weerarka shabaab ee Ballidogle ayaana ku bilowday 2 gaari oo waxyaabaha qarxa lagu soo raray gawaaridaasi ayaana mid kamid ah keenan waxay xogta ku heshay inuu ciisu yahay Dayna halka mid kale gaari yar lagu sheegay. waxaa sidoo kale qaraxa kadib jirta in rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay isku dayeen weerar toos ah oo ay gudaha saldhigga ku galaan waa Ballidogle ee maanta ay weerarka ku qaadeen. saldhiggan oo ah mid aad u weyn isla markaana ay ku sugan yihiin qayb kamid ah ciidanka ugu awoodda badan ee Soomaaliya xilligan ku sugan ee weerarada cirka iyo dhulka geysta ayaa waxa wararku sheegayaan in shabaabkii weerarka qaaday lagu toogtay banaanka hore ee saldhigga iyo sidoo kale halka ay qaraxyadu ka dhaceen. qaraxyada ayaa ah kuwa aad u culus oo saameeyay gudaha saldhigga sida wararka ay keenan ku helayso waxaana jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo qaraxyadu ka dhashay marka laga soo tago raggii shabaabka ahaa ee la toogtay. al-shabaab dhankooda waxa ay guul ka sheegteen weerarka oo ay leeyihiin waxaan la wareegnay qayb kamid ah saldhigga Ballidogle balse xaqiiqada weerarka marka la eego Ballidogle ayaa aysan sahlanayn in gaadiid qaraxyo lagu raray iyo sidoo kale dagaalamayaal gudaha u galaan waana mid hadda laga soo sheegayo oo in shabaabkii weerarka qaaday banaanka hore lagu toogtay. waxaana xiriiraan la sameynay qaar kamid ah saraakiisha Kumaandooska Soomaaliya balse nooma aysan suurtagelin inaan wax ka weydiino weerarka lagu qaaday saldhigga Ballidogle ee gobolka Shabeellada Hoose. Ballidogle waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Mareykan ah oo ka qayb qaata tababarka iyo howlgallada ciidamada Soomaaliya. al-shabaab ayaana sidoo kale waxaa xusid mudan in weerarkan ay uga hadleen luqadda Ingiriiska isla markaana ay ku sheegteen in ay guul ka gaareen. dhinaca kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax barqanimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Jaalisiyaad. qaraxaasi ayaana wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inuu ahaa gaari lagu soo raray walxaha qarxa oo lagu dhuftay kolonyo gaadiid ah oo ay lahaayeen militariga Talyaaniga kuwaasi oo wadadaasi ku socdaalayay. waxaana jirta in qaraxaasi dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen dad shacab ah oo ilaa hadda aan tiradooda si rasmi ah loo xaqiijin karin.